رئيس الوزراء waddanka Ethiopia ayaa kumanaan qof oo ka soo jeeda waddankiisa kula hadlay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. dadka ka soo qayb galay xafladda ayaa waxa ay wateen calamada Oromada, Eritrea iyo kan ONLF iyo waliba calankii Ethiopia ee xilligii Haile Selassie. wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen ayaa ka qayb galay xafladdaasi oo warbixintan nooga soo diray. رئيس الوزراء waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa kumanaan kun oo qof kula hadlay in xarunta Target Center-ka oo ku taala magaalada Minneapolis. Abiy Ahmed waxa uu ka hadlay arrin dadka isku soo dhaweynaysa waano iyo wacyigelin. waxa uu sheegay in bulshada waddanka Ethiopia ku nool ay tahay bulsho aan kala maarmi karin oo isku xidhan isla markaasina ka soo jeeda qoomiyada fara badan. mundanayaal iyo marweyni waad salaaman tahaan wanku farha sanale kullankin manta dad wanaksan bartahan win in jelahay مدن ماندا ولالت ماندا اسجها إن شاء الله شعبكنا وان أركنا كجلجيل إيو كالسن وين أيان النهينيا waxaan la hadlay dadweynihii ka soo qayb galay xafladda hadalka uu ka jeedinayay in ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed runtii waan soo dhaweynay si wanaagsan baan u soo dhaweynay wuxuu ahaa prime ministerkii Ethiopia ee ugu horeeyay muddo 30 sano ah ku dhow aanna ku banaan bixin isaga waan soo dhaweynay calankanagii baan ku soo dhaweynay si farxad loo mooraclaan soo dhaweynay kulankii maanta barnaamij uu waday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu ahaa fariin ummadeed oo ummadu u dirayo marka annaguna waxa uu nimid aragtida aanu qaadanay iyo aragtida aanu nimid waxa ahayd inaanu message iyaga annaguna aan gudbino. Abiy Ahmed inta uu xukunka joogay waxa lagu bartay isbedelo la yaab leh oo uu ka waday mandaqada ama geeska Afrika oo dhan. Maxamed Xaaji Xuseen, BBC, Minneapolis.